Australia gaar ahaan magaalada Sydney waxaa ka dhacay weerar rag hubeysan ay ku qaadeen goobta loo yaqaan Bondi oo xeeb si weyn dad dalxiisayaal ay u tagaan iyo waliba dadka maxalliga ah ee ku nool gudaha wadanka Australia. weerarkan ayaa la sheegay in lagu qaaday dad fara badan oo Israa'iiliyiin ah oo halkaasi ku sugnaa iyagoo u dabaaldegaya maalinta ay u yaqaanaan ciidda iftiinka. hase haatee weerarkan markii uu dhacay kadib waxaa la arkayay dhacdooyin kala duwan oo halkaasi laga diiwaan galiyay. ciidamada booliiska ee Sydney ayaa warar ku sheegaya inay aad uga soo dib dhaceen goobtan si loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee weeraradu ay ku soconayeen isla markaana looga jawaabo falkan si degdeg ah. hase haatee ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ka hadlay dhacdadan waxaana uu ku tilmaamay wax aan la qaadan karin marka si guud loo eego wadanka Australia in uu horeyna u jirto warqad uu u diray ra'iisul wasaaraha wadankaasi uu ku leeyahay George hadallada nacaybka ah oo aad faafinayso oo waxyeelan kara dadkeena taasi waa la filayaa buu yiri markasta inay dhici karayso sida ra'iisul wasaaraha Israel uu maanta baaqa uu soo saaray uu ku daray. telefishinka laga leeyahay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta ee la yiraahdo Sky News Arabic ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa xadii ka falceliya weerarkii ka dhacay magaalada Sydney ee dalka Australia kaasoo sababay dhimashada in ka badan 12 qof halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen weerarka oo ka dhacay xeebta Bondi oo kamid ah xeebaha ugu caansan caalamka ee sida weyn dalxiiska loogu tago. Netanyahu waxa uu yiri nacaybka loo qabo dadkeena waxa waayidii ugu dambeeyay ahaa cudur hogaamiyaasha wadankaasi ay ku faafinayeen wadooyinka. waxa uu intaa ku daray inuu warqad u diray ra'iisul wasaaraha Australia isagoo uga digay in siyaasadda dawladdiisu sida uu sheegay ay dhiirigelinayaan nacaybka dad gaar ah in lagu bartilmaameedsado. dhinaca kale wasiirka amuraha dibadda Israel Gideon Saar ayaa waxa uu ka muujiyay arrin si weyn caro u leh isagoo ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa arrintani waxay ka dhalatay faafinta nacaybka dadkeena ee wadooyinka Australia labadii sano ee la soo dhaafay ka soconaya kaasi oo ay faafinayaan madaxda caalamiyiinta kacdoonkan waa dhaxalkiisa waxa ka dhacay Sydney ayuu yiri Gideon Saar oo arrintaasi si weyn uga hadlay. waxaa xusid mudan in dalka Australia bilowgii dagaalkii bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsaneyd ee marinka ku taalay laga soo bilaabo October 23 in ay si weyn uga soo horjeedeen dhacdooyinkaasi waxaana tallaabooyinka Israel ay ku tilmaamayeen kuwa haba yaraatee aan la aqbali karin sida Australia hadalka ay u sheegtay. Bondi waa xeeb kamid ah kuwa dalka Australia ku yaala ee ugu dalxiiska badan adduunka waxaana dhacdan ay noqonaysaa mid walaaceeda leh oo si weyn haatan warbaahintu ay uga hadlayaan. haddaba sida warbixinta aad ku maqlaysay dadka goobta lagu weeraray waxay ahaayeen dad ka soo jeeda Israel oo u dabaaldegaya ciid oo ahaa dad rayida oo aan dhibaato geysan sida ka muuqanaysay qoraalada kala duwan ee la soo saaray. laakiin wiil dhalashadiisu ay muslim tahay oo Ahmed al-Ahmed lagu magacaabo ayaa waxa uu noqday geesi taariikh leh oo goobtaasi ku badbaadiya dadka. wiilkan ayaa la arkayay isagoo gaari gadaashii ka soo baxaya oo funaanad cad wata isla markaana mid kamid ah kooxihii dableyda ahaa qoriga ka qaadaya intay harjadayeen ayaa laba rasaas waxa la tilmaamay in ninkaasi ay ku dhacday oo haatan lagu dabiibayo mid kamid ah cisbitaalada waaweyn ee Sydney. telefishinka Al Jazeera waxa uu leeyahay qof muslim ah waa sida luqadda wax ugu qoreen ayaa si geesinimo leh uga hortagay mid kamid ah weeraradii laga fuliyay dalka Australia gaar ahaan xeebta Bondi kaasi oo lagu tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso. 12 qof ayaa lagu dilay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. weerarkan waxa lagu beegsaday dad ka soo jeeda Israel oo u dabaaldegaya ciidda iftiinka. warbaahinta Australia ayaa sheegtay in ninka hubka ka furtay mid kamid ah waryahanada uu yahay muslim lagu magacaabo Ahmed al-Ahmed kaasoo intii isku dayay in uu joojiyo weerarka lagu dhuftay 2 xabadood kaasoo hadda la dhigay cisbitaal si xaaladiisa loo dabiibo. muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya nin xiran funaanad cad oo ku ordaya nin hubeysan
kana soo weeraraya dhabarka dambe isagoo ka qaadaya qoriga kadibna dhulka dhigaya. muuqaalka ayaa sidoo kale muujiyay mid ka mid ah dableyda oo isku daya in uu isdifaaco kadibna ka baxsanaya goobta marka hubkii gacantiisa laga faramaroojiyo. wakaaladda wararka Reuters ayaa xaqiijisay saxnimada muuqaalkan iyadoo adeegsanaysa muuqaalo kale si loo hubiyo dhacdadan, isla markaana cadaysay in labada nin ee hubeysan ee ku jiray muuqaalkii hore ay yihiin kuwa lagu arkayo isla sawirka. booliska Australia ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah dableydii la dilay, halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac adag kaasoo haatan lagu baxnaaninayo. falka geesinimada leh ee wiilkan Axmed Al-Axmed ayaa si weyn loogu ammaanayaa baraha bulshada xilligan, iyadoo dad badan ay sheegayaan in tallaabada ay ku badbaadiyeen nolosha kumanaan qof oo halkaasi taagnaa